أصحابتا soo dhawaada welcome back Zainab Somali maanta waxaan ka hadlaynaa asxaabta qiimaha ay leedahay sharafta ay leedahay saaxiibtinimada oo yani qaaska ah ayaan ka hadlayaa aniga ma ahan saaxiibtinimada edeb daradana ma aha u qaadanin saaxiibo caadi ah oo maaragtay yani isku fahmeen wax badan mase yani wax badan isla jaalan jargareynayaan ayaan ka hadlayaa ama maxaa la wiil iyo gabar ha ahaadano mase laba gabdhood ha ahaadano mase laba wiil ha ahaadano mase nin inactiisba ha ahaadano dadka marka saaxiibtinimada iyo ixtiraamka mar uu maaragtay qiimo leeyahay iyo mar uu hadkiisa dhaafayo iyo mar wax ka xumaanaya ayaa jirto dadka waxaan rabnaa intaas inaan falanqeyno maanta reaction ka bixino marka soo dhawaada asxaabta subscribe-kana ha ka ilaabina subscribe-ka saara ila socda ilaa dhamaad sheekada waa inaad dhegeysatiin dhagiina furteen ma fahanteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamay walaalaha qaaliga dal iyo dibin meel walbo joogtaan ilaahay idinku amaansada ninkana sidoo kale waa walaashin Zainab Al-Luqmaan Zainab Soomaali markaliyo muuqaal cusub waxaan idan dhahay YouTube-ka waa ilaawdeena waa ladan xasuusinaa iyaantaan summertime waxaa la rabaa in la kala kiciyo yaa waqti dhow jaanis yar waa la siinayaa waa kaasa waan salaameynaa aniga saaxiibteyda qaaliga ah iyo macal ciyaalkeena dalxiis waxaan idan dhahay jawi inaba caadi ahayna la iska wareegayaa nagama qasano marka soo dhawaada asxaabta qaaliga ah YouTube-ka subscribe-ka ha laga siiyo sanadkan haddaa rabtid in Europe leedan baro yaa Jarmal khaasatan Germany leedan wada baro ma garateen YouTube-kan subscribe roobka ugu dhiga waxaan idan dhahay follow-ga aan caadi ahayn idin soo gelinayaa meel alaala meesha jeceshaan idin geynayaa yaa af Soomaalina waa idinku sheegayaa ma garateen marka raalli ahaada soo saamid saaran iska ilaaway haddaan saaraya subbalahan soo jiide marka waa kaas asxaabay subscribe hala saaro leegtana si muuqaalka meel dheer u gaaro hawda ha laga suro comment-gana ha idinku arko waxaan idan dhahay maalinta iyo habeenka waqtigaa joogtin baa idan waanaato markaan iyo saaxiibteyda iyaalkii waxaan ku dhahay guryaha waa la nacay ma fahanteen hoogo waxaa la bilaabayaa marka warwareeg yaraa la bilaabaa yaa kii weynaa weli waa dhaminyaa kan weynka waxaa waaye waad arki doontaa sankana sanadka waxaa waaye sanadkii dalxiiska waa ma fahanteen meelba meelaa lagu degi doonaa diyaarad yaa haw wadamadaa la tirina marka intii laga gaarayo horta hadda waxaa idan leeyahay soo dhawaada waa isla gaaraynaaye iisoo sheegle adi meel hiblaayo nageyle isoo dhaha yaa meel hiblaayaha nageey meeshasaan rabnaa inaan aragno wadan hibilaha nageey hataan dhaha bas yaanile maraykan lehay dirin yaa maraykan hataa falooga idin soo dejinaa idin dhaha haddii oo maraykan iga soo dalbatin maraykan hataa faloogeeda idin tusaya dhib ma lahan marka waa idin salaamay asxaabta qaaliga ah salaan kadib maanta maxaa la isaga waan vlog baan sameynaynaa waa iska dalxiisaynaa waa iska warwareegaynaa taraan iyo maxaa la dhahay isaga iyo maxaa la dhahay isaga iyo maxaa la dhahay waxaa la dhahay vlog ayaan sameynaynaa dee igu qaata dee halkii hadal haddii 5 mar la idinku soo celiyo waxaa waaye xaaladaha YouTube-ka jajeexan ma garateen YouTube-ka xaaladaha jajeexan waa la ilaabay waa kaas hadee hadda soo raacd bal yaa intaan aniga idin wada idinkana soo raaclay ilaa meeshaan idin geeyo saan ila socdo ma garateen intaas markii laga tago oo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo saaxiibteydina horta waa idin salaamaysaa maasha Allah waxay leedahay igu salaan asxaabtaada qaaliga ah
waa kasayga godoom mar ayaan live toos iskala soo gali doonaa mise video toos iskaga soo duubi doonaa kan hadda ani like hadlooy waxay dhahday waxaa tookada adila iga fasuul ah insha Allah mar kale ayaan ka wada hadli doonaa dhamaantii labadeena bil soo fadhiisaneen hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa asxaabay inaan ka hadalno aniga khaasatan waxaan rabaa inaan ka hadlo dalkii iyo dibadiisa iyo meel walba adduunka la joogo oo ayaan ka wada dadka labada qof waxaan ka hadlayaa saaxiibada ama se labada qof ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan ama maxaa la isagay waxay doonaan ha ahaadaan laba qof oo saaxiib ah ayaan ka hadlayaa saaxiibka maxumo wuu fiican yahay waa caadi laakiin waxaa jiro yani waxyaabo badan oo maaragtay dadka ka yaabinayo wax dadka ka yaabinayo ayaa jiro waxaa ka mid ah horta wadankii xataa waxaan arki jirnay labada qof oo isqabto lamaanaha ah inay iska dambeeyaan ama kala dambeeyaan yani reerka labada dhinac la iskala qabto way fiican tahay haddana waxaad arkaysaa gabar la qabo hurnimo ka nooleen oo maxaa la dhahay guriga waxba ka qaban karinba wax kastoo tilaabo walba iyada qaadayso diiniyan way fiican tahay taas la iskuma haysto laakiin waxyaabo yaryarooti oo waxaa jiro dumarka mas'uulka waxyaabahaas oo kale waxaa ka mid ah Soomaali marka la joogay waad aragteen waxaa maaragtay ii sheeg adiga jiro haddii oo maaragtay marmar baa hataa dabka la iska doontaa marba waxaa la iska doontaa yani milixda markay kaa go'do oo kale waxyaabo ada yaryarooti oo maaragtay deriska iyo dumarka iyo waxyaabahaas ayaa maaragtay la iska doontaa Soomaali waxaan aragnay inta ka hor yani qof markii oo maaragtay ii sheeg adiga milixda kaa dhamaato oo yani dad qof deriska ka mid ah u tago naag dhayso ninkayga sugay lahaa asbada ma dhiibay ya asbada milixda ma dhiibayo ilaa ninkayga ka soo fasaxo markii raalinimo miyaa kaa tahay walaalay mise marka cabsi ka ahayd gabadhaas wax ma sidii ilmo yaro oo maaragtay hadda la tababaray amal ayaa wax kasta looga isticmaalsan jiray wallaahi waan la yaabi jiray ma fahanteen marka qof walba wuxuu leeyahay xaq qof walba wuxuu leeyahay waajib waxyaabaha waaweynka ee muhiimad ah odayga in la weydiiyo way fiican tahay laakiin waxyaabo yaryarooti ah waa ceeb in maaragtay dumarka la abayuuso waxaas oo kale hataa ma dhiibi karta la dhaho markaan soo noqdo aan u soo noqdo waxaa jirto labada qof oo ii sheeg adiga guriga isla degan qof baa maaragtay active ah qof baa taliyo qof baa maaragtay firfircoon qof baa maasha Allah markii dadka wax u baahan yihiin waxa la warkan maahane yani qofkaas la weydiiyo amalno haday dumar tahay in heblaha la weydiiyo ninka iyada maaragtay liijanka oo haysan la hadduu nin yahay waxa la dhahayaa war iyada yaa asaaba kana maasha Allah asaga la weydiiyo qofta waxba ma noolo amal marka anta markii laga soo tagay yani family ahaan way kuwaas markii laga soo tago waxaad arkaysaa dad laba qof oo friends saaxiibo ama gabar laba gabdhood ah ama laba wiil ah ama wiil iyo gabar hataa oo qof madax ka haysto oo yani qofkaas biniyan ba iyo bilkuliyan ba yani damiir ahaantiisa waxaad moodaa inuu dhintayba qofkaas inuu dhintayba aad moodaba oo waxba la weydiin karin qof ilaa qof loo soo maro hay adkaatay ya yani qof hiblaayo waxaas haloo sheeg markii iska daa waxa la leeyahay ya maxaa la iyada maxaa looga sheegaya hiblaayaa u talisa hiblaayaha loo sheego mise hadduu hibloogu uu yahay naftirkiisa haddii waxa laga rabo warkan naga dhaafay adii kan hiblowle laga soo mara xaggiisa خلاص waa iska dhamaatay kaino yani meet
يعني qofkii dhanba shakhsiyadiisa dadnimadiisa damiirkiisa kartidiisa noloshiisa dhan yani saasay ku dhimatay mana ogo qofkaas asaga isma ogo wuxuu is leeyahay saaxiibka ka dambeey wanaaji isku dhinta laakiin korka ayuu laga saaran yahay waxa waa ii sheeg adiga maskaxda laga haystaa qofkaas oo kale marka dadka waxaan leeyahay saxaabay aniga hadda waan jecelahay yani gabar iyo wiilba yani dadka oo asxaabtanahay inaan qadariyo ilaa had aan qadariyo oo anigana la qadariyo la ixtiraamo waan rabaa laakiin wax walbo aniga maartay la iga rabo in qof kale la ii soo adeegsado in daciifnimadayda yani alaashaan go'aanba aan gaari karin waxba aan ahayn aan dhihi karaa marka insha Allah asxaabta hal wanaajiyo laakiin yaa maartay la isdilin dadnimadaada iyo damiirkaada iyo sharaftaada iyo karaam noqo qof naftiisa iyo noloshiisa qiimeynaya micneheeda ma ahan in adiga naftaada iyo nolosheeda qiimeynayn laakiin qofba qof le loo soo marayo war ilmihii yaaba hadda hooyadooda iyo aabahooda waxba lagu weydiinoyn hadday 10 sano gaaraan ayaga tartiib wax loo qaadana marka asxaabta waa idin salaamay marka haddii yani qof isku dayo adiga dhanba inuu sharaftaada iyo magacaaga iyo qiimahaaga dhumiyo maartay oo yani wax kastana asaga loo soo maro kaas waa laga tagaya ma fahanteen markay khayr ayna rajeynade yani kor iska soo qaada waxaan idin leeyahay khayr badan ayaa idin rajeynaa ashar badan ayaa idin ku soo aadan subscribe saar bye bye